munaasabada Ciidul Fidriga oo kamida munaasabadaha sida gaarka ugu suntan ummadaha Islaamka ayaa laga xusay dunida oo dhan. Laascaanood waxa masaajidda iyo goobaha fagaaraha maanta bulshadu ugu dareereen siday u soo gudan lahaayeen labada rakacadood ee sunnaahi. Waxaana si caadi ah bulshadu iskula dhaxmarayeen hambaliyada iyo taaniyada salaamaha ciida. Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan, la taliyaha madaxweynaha ee dhanka arrimaha bulshada, ayaa geestiisana kala qayb galay bulshada gobolka Sool munaasabada ciidda. waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan caalamka islaamka Soomaaliya oo dhan meel joogtaba ilaahna waxaan ka baryaynaa inuu bisheeda nagu gaarsiiyo nabadgelyo iyo caafimaad. السلام يا دمان أمد الصوماليين أنا ألقى السلام يا دمان أمد علينا عيد مبارك وعيد بشلين وقارسي عيد وحن كبرنا إنه ربي برواقي بشلين وقارسي السلام يا دمان أمد المسلمين تا ونقهم بليانية لبدن عيدات إسقالي عيد الجمعة عيد الفطر وإسقالي حاليا أمد المسلمين تا ميلا توقتان با حنكون رجينا همبلي كل السلام يا دمان مدرسة إلى جوان السلام يا دمان مدرسة إلى وحلا يكون عبوا سعيدني مقالة لاسعانود سيدي مدحوينه ويدين همبليين عيد الفطرية بانو أنا قلنا هلكن كعيدنا شعبك maanta maalin farxadeed ah oo ciid mubaarak ah dhammaan marka ugu horeysa waxaan hambaliyada ciida u hambaliyeenayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogto waxaan u sii hambaliyeenayaa ummadda reer Somaliland sugnahay magaalada Laascaanood oo kula ciidna shacabka reer Laascaanood qurux badan iyo wanaag badan iyo fiicnaan badan baa reer Laascaanood ka muuqata si hore u jirtay raxiim maanta waa maalintii aynu u dabaaldegaynay munaasabada Ciidul Fitriga anagoo 29 cisho soo soomanayn ilaahay waxaan ka baryaynaa soonkii amaashii iyo salaadii aynu soo gudanay Rabbi inuu naga aqbalo waxaan halkan hambaliyo iyo bogaadin uga dirayaa guud ahaan ummadda muslimiinta meel ay joogaanba gaar ahaan ummadda reer Somaliland gaar ahaan ummadda reer Sool iyo reer Laascaanood. dhanka kalena garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale ayaa isaguna ugu hambaliyeeyay dhammaan ummadaha islaamka munaasabada ciida awgeed oo maalintii barakaysnayd ciidal fidriga oo aynu soo soonnay ilaahayna si nabadgelyo ah inoogu dhameeyay ilaahay waxaan ka baryaynaa khayrkeeda waana siiyee sanadka ku xigta ilaahay inuu cafiyo caafimaad iyo cimri dheer ugu gaarsiiyo. Xamse Xaaji Maxamuud Raadiye wararka telefishinka caalamiga Universal Laascaanood.